wasiirka caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye waxa uu sheegay in aan xaqiiq ahayn warar sheegay in xaaladda adeega isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ay hoos u dhacday kuwaas oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha arrintan joornaalku qoray runtii waa arrin dacaayada waan sal iyo raadtoona lahayn been ah waan cambaaraynayaa joornaalkaas iyo ciddii ka dambeysay maqaalkaaba ciddii doontaba ha ahaatee waa maqaal u eg kolleyba inuu huwan yahay masayr laga masiirsan yahay adeegyada caafimaad ee aadka u koraya ee cusbitaalkan ka socda waxaan ka shakisanahay ama aan isleeyahay waxaa lagu kula private clinicska oo halkii ay runtii ku farxi lahaayeen aada moodo in ay u arkaan cusbitaalkii threat businesskoodii threat ku ah yalkadeed anuu cid tilmaami maayo laakiin cid kastoo ka dambeysay waan cambaaraynaynaa joornaalkana sida agaasimuhu sheegay maxkamad baanu la tegaynaa wuuna caddaynayaa waxaanuu sheegay cusbitaalku horumar aada iyo aada u wanaagsan oo runtii la taaban karo oo la og yahay mujtamacu og yahay ayuu ku tallaabsaday adeegyo badan oo caafimaad oo aan hore loo dabooli jirin ayuu daboolay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cismaan Xuseen Warsame iyo Axmed Cumar Askar oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa oo si wada jir ay warbaahinta ula hadleen wasiirka caafimaadka ayaa sharaxaya qaabka ay beeninayaan warkan laga baahiyay adeegyada isbitaalka maqaalkaasi wuxuu leeyahay qayladhaan baa ka taagan isbitaalka guud ee Hargeysa laba haweena oo shalay u geeriyooday qalliin fudud iyo dhakhaatiir ajaanib ah oo tababar ku qaadata dadka waxa ila tahay mudane wasiir mudanayaal waxa weeyaan isbitaalka guud ee Hargeysa waxa weeyaan isbitaalkii qaranka waa isbitaalkii ummadda waa hay'ad qaranku iska leeyahay maqaalka halka lagu qoray waxa weeyaan wuxuu fadeexadeeyay adeegii ay ummaddu dhigatay ee xukuumaddu ay dhigatay ayuu fadeexadeeyay inkan runtii ay ku shaqaaluhu wasaaraddu ay ku talaabsadeen in la dhiirigeliyo mooyaane in runtii lugta la jiido oo la dacaydiyo runtii waa laga fiican yahay toddobaadkii hore ayaa wargeys ka mid ah kuwa ka soo baxa magaalada Hargeysa uu daabacay war ka hadlaya adeega isbitaalka guud ee Hargeysa oo ah isbitaalka ugu weyn ee maamusha xukuumadda Soomaaliland Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.